kulanti wanaagsan daawadayaal oo mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta iyo dunida wararkii ugu dambeeyay caalamiga ah qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Mareykanka iyo Ruushka oo markii ugu horeysay la ogaaday inay kordhiyeen samaysashada iyo kor u qaadista lixaadka hubka nuclear-ka shirkii ka soconayay dalka Canada ee looga hadlayay qadiyada dalalka saaray cunaqabataynta iyo sidii loo xoojin lahaa cadaadiska la saaray waqooyiga Korea oo soo xirmay isla markaana Pyongyang laga soo saaray Ruushka iyo China oo aan ka qayb galin shirkaasi Iran iyo Saudi Arabia oo markaasi isku birtumanaya Iran oo weerar afka ku qaaday dalka Saudi Arabia iyo Qatar iyo waliba xiisadii bariga dhexe oo iyaduna soo laba lixaadsatay qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan waa maalinimo Arbaca 17 bishii Janaayo sanadkii 2018 oo kale barnaamijkeena falanqaynta iyo dunida daawadayaasha qiimaha lana aan ogeysiyo hadii Allah idmo wixii loo gaaro maalinimada Sabtida wararka waxaan ka dhigi doonaa laba qaybood maadaama wararku ay aad u badan yihiin dad badan oo Soomaaliyeedna ay dalbanayaan in wararka la kordhiyo sida daraadeed iyadoo dad badan aysan jeclayn wararka dhaadheer ee markaasi 40 daqiiqo ah aynu markaas ka dhignay laba qaybood aan ku bilownay nin hore uga tirsanaa jiray hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii sida la sheegay lagu helay in uu si gaar ah u kaydsaday xog muhiim ah oo sharci darro tahay inuu haysto ninkan oo lagu magacaabo Jerry Shin Lee oo qaatay dhalashada Mareykanka ayaa si u shaqeynayay intii u dhaxaysay sanadkii 1994 ilaa 2007 waxaa la sheegay in wixii markaasi ka dambeeyay uu u wareegay magaalada Hong Kong balse markii uu Mareykanka ku soo laabtay 2012 xilligaas FBI-da ay hoteelkii uu deganaa ka heshay buugaag ay ku qoran yihiin macluumaad la xiriira magacyada telefoonada dad CIA-da ka tirsan oo si qarsoodi ah u shaqeynayay wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in haddii ninkan lagu helo dambiga uu ah inuu kaydsaday xog sir ah oo sharci darro ah uu wajihi karo 10 sano oo xarig ah Mr. Lee ayaa horay u saxiixay axadiga ah inuusan faafin doonin sirta Mareykanka isaga oo haysta ruqsadda amniga qaranka Mareykanka hay'adda CIA ayaa waxay leedahay dad badan oo hawlgala oo dunida ku kala deedsan waxaa la sheegay ninkan inuu markaa hawlgalayay dalka China oo halkaas uu hawlgal markaasi dabagal iyo sirdoon iyo war ururin uu ka waday warbaahinta dalkaasi China ayaa ku eedeysay ninkan inuu xafliyay qorshayaal waaweyn oo markaasi ka dhana dalka China iyo Israa'iil la khaarajiyay lama saacadeen dawladda Mareykanka kama aysan hadal arrintaas balse waxay sheegtay inuu kaydsanayay xog ay ahayd inuusan kaydsan saddex ka mid ah ciidamada Turkiga ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka Antalya ee magaalada Sparta diyaarad military oo nooceeda la yiraahdo Casa Type Military Training oo ah diyaarad loogu talagalay in markaasi lagu tababarto ciidamada markaasi cirka lagu tababaro ayaa ku burburtay bartamaha gobolka ku yaala dalkaasi Turkiga ee la yiraahdo Antalya magaalada Sparta war qoraal oo ka soo baxay ama hadal ka soo baxay gudoomiyaha gobolkaasi ninka la yiraahdo Sahmus Gunyandi ayaa wuxuu xaqiijiyay in laba kamid ah labadii pilot ee diyaaradda saarnaa iyo mid kamid ah farsamayaqaanada ay ku dhinteen burburka diyaaradda Gunyandi muusan sheegin sababta uu burburay ama diyaaradda burburkeeda sababay in ay tahay in gantaal lala eegtay maadaama deegaanadaas ay ka howlgalaan kooxda PKK iyo in ay xaaladda markaasi dhinaca cimilada tahay warar ay helayso warbaahinta dalkaasi Turkiga ayaa xaqiijinaya in ay deegaanka ka jirtay ama hawada ay si xooggan uga jirtay ceeriyaamo xooggan iyadoo storm waxa loo yaqaan ama duufaano waaweyn ay ka dhacayeen gobolka taasoo u badan baa leeyahay 90% inay sababtay burburka diyaaradda military ee dalkaasi Turkiga baarayaasha ayaa waxay sheegeen in 11kii markay ahayd saacada dalkaasi ama xilliga localka ah dalkaasi 11kii 3 daqiiqo ayaa diyaaraddu waxay ka kacday garoonka la yiraahdo Skinkini iyadoo markaasi la waayay xiriirkeeda 12kii ama 6 saac iyo 50 daqiiqo ama 12kii iyo 50 kowdii iyo 10 dhiban iyadoo baaritaankan la bilaabay 40 daqiiqo kadib xilligii diyaaradda warkeeda la waayay oo ku aadaneed baa la 2 daqiiqo markaasna la xaqiijiyay in dhibaato dhacday isla markaana diyaaradii ay burburtay dawladda dalkaasi Turkiga wali kama hadal arinta wali halka nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay tinida wadana wararka Turkiga ka bixina xogayaha ama wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Turkiga Mevlut Cavusoglu oo ka qayb galaya saraakiisha ku shirsan magaalada dalkaasi Canada ku taala ee looga wada hadlayo qadiyada dalkaasi waqooyiga Korea iyo sidii loo xakameyn lahaa ayaa wuxuu sheegay in علاقاتك Mareykanka iyo Turkiga uu xumaan doono hadii Mareykanka uu ku adkaysto inuu sii wado talaabooyinka uu doonayo inuu ku abuuro ciidamo lixaad leh oo ah kooxaha Kurdiyiinta ah ay sida weyn isaga soo horjeedaan Turkiga. Cavusoglu ayaa wuxuu la kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson iyo xogayaha difaaca dalka Mareykanka James Mattis waxayna ka wada hadleen magaalada la yiraahdo Vancouver ee shir saddex geesooda oo ay ku yeesheen halkaasi
kaasoo dabcan ay markaasi kaga wada hadleen qadiyadihii ugu dambeeyay iyadoo ciidamada Turkigu ay weli ku shaqeeyaan bartamaha dalkaasi Syria. Ciidamada ayaa la dhoobay guud ahaan goobaha muhiimka ah ee gobolka si la yiraahdo Hayat iyadoo sidoo kalena la arkayay dabaabaad ku daadanaya oo aad ugu qulqulaya isla markaana ka dhacaya taagooyinka magaalada Afrin oo la aaminsan yahay inay ku hareeraysan yihiin ciidamada Turkiga. Cavusoglu wuxuu sheegay in ay Mareykanka u sheegeen in talaabada Turkigu aysan ka noqosho lahayn isla markaana ay tahay go'aan military oo markaas go'aan ku gaadheen in ciidamadu ay ka eriyaan deegaanada ku dhow xuduudda in ay mucaaradadka xiriirka la leh kooxda PKK ee 40 sano ku dhawaad ka diriirisay dalkaasi isla markaana dagaalkii 1984 bilowday ilaa haatan uu 80kii bilowday ilaa haatan uu soconay isla markaana 40,000 oo qof ay ku nafwaayeen aysan ogolaan inay awood ku yeeshaan goobaha ka dhow dalkaasi Syria gaar ahaan xuduudda dalkaasi uu la wadaaga Turkiga. Waxa uu sheegay inay fahansan yihiin sida uu sheegay afayeen u hadlay Pentagon-ku inay jirto kala aragti duwanaan ka imaanaysa Pentagon-ka Washington iyo saldhigga dhexe ciidamada qalabka sida ee Mareykanku ay ku leeyihiin bariga bartamaha Asia kuwaas oo iyagu isku khilaafsan sida loola tacaamulayo arrinta. Wararku waxay sheegayaan in aqalka Pentagon ama daarta Pentagon ay aaminsan tahay in kooxdaas aan haba yaraatee hub dama la siinin hase yeeshee ay ama isla markaana la siinin tababar xooggan hase yeeshee taliska dhexe ee dalkaasi Mareykanka ay u fadhiya bartamaha Asia ayagu ay dalbanayaan in kooxdaas la caawiyo si ay garab xooggan uga helaan Mareykanka. Cavusoglu ayaan ka labalaynin in jiritaanka ciidamadooda galitaanka magaalada Afrin ee waqooyi galbeed dalkaasi iyo gobolada kale koonfurta ku yaala asagoo sheegay in Mareykanku uu go'aansaday inuu kooxdaas ka eriyo halkaasi isla markaana cagta mariyo cid kasta oo halka tababaraysa. Wada hadallada saddexda nin ayaa la sheegay in ay ku soo gabagaboobeen markii dambe in arrinta laga wada hadlo isla markaana la dejiyo. Mareykanku haatan wuxuu isku dayayaa inuu qadiyada qaboojiyo. Taliyaha ciidanka qalabka sida dalkaasi Turkiga General Hulusi Akar asaguna wuxuu ka sheegay shirka ka soconaya magaalada Brussels ee xarunta dalkaasi Belgium-ka in aysan Mareykanka ka yeelaynin inuu tababaro dad waxaana uu sheegay in ciidamada Turkiga halkaasi galay ay haystaan amar madaxweyne oo ah inay talaabooyin xooggan ka qaataan kooxdaasi. Shir degdeg ah oo yeesheen madaxda ciidamada qalabka sida kuwa sirdoonka saraakiisha ciidamada badda iyo kuwa cirka dhammaan iyo golaha amniga ee dalkaasi Turkiga la yiraahdo The National Security Council ama MGK la yiraahdo ayaa iyaguna waxay ku dhawaaqeen in ay muhiim tahay in ciidamada iyo dalkaasi Turkigu amar lagu siiyo inay talaabooyin lixaadle ka qaataan deegaanada oo dhan isla markaana ay cagta mariyaan baa leeyahay cid kasta oo ka soo horjeeda rabitaanka. Waxa la sheegay shirka inuu ka soo baxay in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan lagu taageeray go'aamadiisa ah in uu burburiyo kooxda YPG iyo waliba kooxda PKK iyo SDF dhamaantoodna uu ka dhigo kuwa ka caagan goobaha ka agdhow xuduudda dalkaasi Turkiga. Halka nagala socotaan وهرفدي ميديا شركة كسرعية مجالات سي فانكوفر دلكسي كندا أي سوق بجوبي أيضا كقرب جلين كدوات لبعتهم وسير هرمة بدات ودينيدا wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Japan Taro Konos ayaa wuxuu sheegay in uu aad uga xun yahay in la aamino buuri wada hadallo waxa uu eeg buuri wada hadallo handadaad ah waqti lumisa oo ay bilowday waqooyiga Korea kuwaas oo ay koonfurta ku sasabanaysa buuri wuxuuna sheegay in waqooyiga Korea ay doonayso waqti dheerarsi ay ku horumariso goorta ay qaadi lahayd weerar habka nuclear-ka ay ka geysato dalalka Mr. Toro wuxuu ka digay in dalalku aysan isdhigadhin isla markaana aan lagu sirin buuri waxa uu ugu yeeray ciyaarta xilliga diraacada ah ee qaboobaha ah ee ka dhacda dalkaasi koonfurta Korea isla markaana aysan waxba ka taraynin buuri inaysan waqooyiga Korea aysan joojinaynin hubkeeda nuclear-ka wuxuu sheegay in la taagan yahay waqtiga waqooyiga Korea hubkeeda nuclear-ka go'aan rasmi laga gaari lahaa isla markaana ugu yaraan xataa la isku ogaa lahaa buuri wuxuu ku tilmaamay hadal munaafaqnimo ah in laga labayo go'aanka waqooyiga Korea سو أحبول مد عقبية أرماد ود دلك سمريك كروك سيتريسل أيه سوون عرب كل شيء إن أي تها إن للصي وضع عدد سكالوا يوقوي كوري shirka ayaa waxaan ka qayb gelin isla markaana aan imaanin labada dal ee ugu saameynta badan waqooyiga Korea kolka ay timaado waa Ruushka iyo China waxaan la aaminsan yahay in Mareykanka uu arintaasi diiday inay ka soo qayb galaan taas oo ka dhigan in lagu eedeynayo inaysan ayagu meel marin baleelaya hadda go'aamadii qaramada midoobay ee go'aamadii qaraarada adadka ee lagu xanuujinayay baa waqooyiga Korea taas ayaa waxay muujinaysaa sida waqooyiga Korea ay guul uga gaadhay arrimaha diblomaasiyadda iyadoo horey la isku lahaa oo waxa looga tagtay dhinaca diblomaasiyadda maadaama dalalka ugu saameynta badan
caalamka laba kamid ah shirkaasi laga qadiyay taasna ay ka sii xanaajin karto dalalkaas isla markaana ay xoojin karaan cilaaqaadka ay leeyihiin waqooyiga Korea. Shirkaas ayaa sidoo kale aakhirkii waxa lagu soo gabagabeeyay war qoraal ah oo ay soo saareen wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Koonfurta Korea Kan Kanyu ayaa wuxuu sheegay in waqooyiga Korea ay tahay in laga dabciyo barasharka xoogan ama culayska xoogan haatan lagu hayo isla markaana la eego buuri bal wada hadaladan markaas salka dhulka ugu dhuftay inay ka turjumayaan inay daacad tahay in kalena si dhow loola socdo. hase yeeshee Japan ayaa arrintaasi weyn uga carootay waxayna sheegtay Japan in aysan sugaynin in dalkeeda mar kale hub nuclear ay u noqoto dulmanayaal la dhaco. halka nagala socotaan waa warfadhi media wararkii ugu dambeeyay dunida weeye tabcan madaxweynaha dalkaasi Iran Hassan Rouhani wuxuu sheegay ama uu ku baaqay in dalalka xanibaadda ee gobolku ay ka qaadaan cunaqabataynta dalkaasi Qatar. wuxuu sheegay in Iran ay garab taagan tahay dalka Qatar isla markaana wuxuu sheegay in hadadaada lagu hayo joogtada ah ay tahay mid aan lahayn ayuu yiri cudurdaar isla markaana aan ahayn cadaalad. wuxuu sheegay Mr. Rouhani oo la kulansanaa afayeenka golaha wada tashiga ee dalkaasi Qatar ninka la yiraahdo Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud oo isagu kaga qayb galay magaalada Tehran ee xarunta dalkaasi Iran shir ay leeyihiin baarlamaanada dalalka ama ururka Islaamiga ah ee la yiraahdo OIC the organization Islamic Conference ayaa wuxuu sheegay in la joogo waqtigii dalka Qatar laga celin lahaa wuxuu ugu yeeray waraabayaasha boobay. wuxuu sheegay in Iran mar walba garab taagan tahay isla markaana ay ka jirnaxaysa buuri dhibaatada loo geystay dadka iyo dalka reer Qatar asagoo sheegay in ay aaminsan yihiin in cadaadiska dalkaas iyo dawladooda la saaray ay yihiin mid aan la aqbali doonin isla markaana ay tahay buuri wax kasta oo kala duwanaanshaha dalalka gobolka ah inay ku xalilaan buuri wada hadal taasoo uga jeedo buuri in ay noqdaan buuri kuwa ixtiraamaya madaxtinimada iyo dalnimada dalka Qatar. ururka baarlamaanada dalalka muslimiinta ee la yiraahdo PUIC ayaa shirkiisa wuxuu ka soconayaa magaalada Tehran iyadoo halkaasi lagaga wada hadlayo fulinta go'aamadii shirki Istanbul ee halkaasi hore uga qabsamay 13 bishii December ee sanadkiina wadaartay. Iran ayaa sidoo kale waxay ku eedeysay Mareykanka in uu arinta asagu uu sii horinayo isla markaana dalalka uu arintooda uu horinayo waxaana sidoo kale Hassan Rouhani uu sheegay in go'aanka Mareykanka ee ku saabsanaa buuri aqoonsiga magaalada Qudus ee uu siiyay Yahuuda ay muujinayso buuri sida loogu deeyay buuri wax walba dadka muslimiinta iyo dalalkooda isla markaana loo dhibaateenayo. inta ka bixin wararka Iran ninka ugu sareeya talada dalkaasi Iran ee la yiraahdo Ayatollah Ali Khamenei ayaa weerarkii ugu baanaa abid oo dhinaca afka ku qaaday dalka Saudi Arabia ayuu wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kuwa iyagu khiyaaneeyay muslimiinta dunida ama caalamka islaamka. Ayatollah Ali Khamenei oo furitaankii shirka baarlamaanada islaamka ee dunida islaamka hadal ka jeedinayay ayaa wuxuu ugu baaqay dowladda dalkaasi Saudi Arabia inay ka hadho waxa uu ugu yeeray jannada iyo beeraha ay siixinayso buuri sahanooniyada iyo Yahuuda buuri iyo waliba Mareykanka wuxuuna sheegay in qoyska talada haya ee dalkaasi Saudi Arabia ay yihiin kuwa naaxinaya iyagu isla markaana hooy siinaya daba marteenaya khiyaaneynaya wali isla markaana gacan bidixeenaya wali muslimiinta. Ayatollah Ali Khamenei ayaa wuxuu sheegay in ummadda muslimiinta ah maanta dhibaatada haysata iyo halka looga soo dhacay ay yihiin buuri Sacuudiyiinta oo ugu baaqay in ay diidaan dadku in ay yeelaan buuri in walaalahooda muslimiinta maalin walba koox lagu horcuno wuxuuna sheegay in la og yahay in Sacuudigu si dhow ula shaqeynayay Yahuuda iyo Mareykanka. wuxuu sheegay Ayatollah Ali Khamenei in asagoo og buuri in dalkiisa ay cadow ku yihiin dalal badan oo muslimiin ah haddana ay ka doorbidayaan haday Iran yihiin in muslimiintu ay midoobaan isla markaana Yahuuda iyo Mareykanka la isku kaashado. wuxuuna sheegay in quwadda muslimiinta oo la mideeyo iyo ciidamo guud oo dalalka islaamka oo dhan loo sameeyo ay kaliya wax ka bedeli karta buuri doorka muslimiintu ay caalamka ku yeelan karaan iyo sida loo dhageysan karo weedhooda iyo warankoodina uu wax u gali karo waa sida uu khudbad dheer halka kaga jeediyay. hadalkiisa ayaa markiiba waxa lagu soo daacay barta uu ku leeyahay markaasi internetka iyadoo sidoo kalena uu aad ugu dhaleeceeyay hogaamiyaasha Sacuudiga inay yihiin kuwa ayagu mar walba diyaar u ah inay jalaafeeyaan buuri danaha islaamka isla markaana ay diidaan buuri horumarka islaamka. wuxuuna sheegay in xiriir la og yahay uu ka dhaxeeyo aqalka haatan talada haya ee dalkaasi Saudi Arabia iyo dalalka kale wuxuuna sheegay in taas ay tahay mid xogiyihii hore ee difaaca Mareykanka ee gaar ahaan xilligii madaxweynihii loola jiray Bill Clinton Nicholas William Perry oo ayaa wuxuu markii ugu horeysay sheegay in xaalad khatareed ee caalamka ku soo kordhayso ay marayso meeshii ugu dambeysay.
wuxuu sheegay in Mareykanka iyo Ruushka ay haatan ay tahay dagaalkooda qabow ee bilowday mid khatar badan isla markaana wuxuu sheegay sababtoo ah buu in Ruushka iyo Mareykanka ayaa iska hor imaanaya taasoo cadaawad xoogan ay la socoto buu isla markaana abuuraysa buu halis dagaal qabow Mr Perry iyadoo ay sabab u tahay Mareykanka iyo Ruushka oo dib u dhisay buu hubka nuclear-ka taasoo dib u abuuraysa buu halis military oo dagaal qabow ah iyo in dalalka hubka nuclear-ka la siinayo ay bataan William Perry ayaa wuxuu sheegay in halista caalamku haatan oo galay ee dhinaca tartanka hubka nuclear-ka ay soo kordhay tan iyo intii madaxweyne Donald Trump uu xilka qabtay arrinta ayaa kusoo beegmaysa oo dhawaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in ay dagaal qabow ay kula jiraan buu dalkaasi ama ay si toos ah uga jiraan buu dalalka uu kamid yahay China iyo dalkaasi Ruushka Mareykanku wuxuu Mr Perry ka digay in hubka faraha badan ee nuclear-ka ay la kaydsanayo isla markaana la soo saarayo iyo horumarinta dhinaca military iyo qarashaadka xooggan ee la sameeyo ay ka tarjumayso sida dunidu ay khatar ugu sii dhawaanayso arrintan ayaa sidoo kale waxa uu ku soo beegantay iyadoo madaxweynaha Mareykanka uu dadaalkiisii ugu dambeeyay isugu geeyay inuu wiiqo dhammaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka diblomaasiyadeeda iyo galaangalka ay ku leedahay go'aamada masiiriga halka uu ka doorbidayo inuu kor u qaado talooyinka ay jeedinayaan saraakiisha iyo taramada ciidamada isla markaana uu kordhinayo waaxda difaaca Mareykanka tirada ciidamada Mareykanka iyo miisaaniyadda ciidamada Mareykanka waxaana Mareykanka oo horay inta badan xoog saari jiray arrimaha diblomaasiyadda isla markaana in badan adeegsan jiray diblomaasiyadda haatan uu muuqda inuu xoojinayo dhinaca militariga taasoo ka dhigan mid khatar ku soo ahbalay caalamka daraasado isxiga oo la soo saaray ayaa sheegaya in madaxweyne Donald Trump waxa uu sameeyo doonaan cidina ogeyn isla markaana uu yahay ninka kaliya ee haatan madaxweyne ka ah dal quwad leh ee go'aan kaliya intuu habeen gaaro isla markaana ku dhaqaaqi kara waxaana aad looga shaksan yahay in madaxweyne Donald Trump uu intuu xilka hayo uu Mareykanka geliyo dagaalo waaweyn oo lagu hoobto iyo inuu khatar kale oo dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka uu soo jiido halka nagala socotana waa Horfadhi Media ninkii ka tirsanaa aqalka talada haya ee dalkaasi Qatar ee horay loogu xidhay ama loogu haystay dalka Imaaraadka Carabta Sheikh Abdullah bin Ali Al Thani ayaa laga soo dejiyay dalka Kuwait asagoo bareele ama gaari gacan lagu wado kadib markii la sheegay in dhibaato ka soo gaadhay dalka Imaaraadka Carabta ninkan ayaa la arkayay sawir laga qaaday oo muujinaya isagoo laga soo dejinayo magaalada Kuwait ee xarunta dalkaasi Kuwait isla markaana loo gudbinayo isla markiiba isbitaalka guud ee magaaladaas isla markaana la saarayo gaari ambulance ama baabuurka dhooliga loo yaqaan ama gargaarka degdega arrinta ayaa waxay ka dambeysay kadib markii Sheikh Abdullah bin Al Thani uu sheegay in dhawaan lagu xiray isla markaana lagu afduubtay magaalada Abu Dhabi ee xarunta dalkaasi nin ay wada dhasheen Abdullah oo la yiraahdo Sheikh Khalid ayaa wuxuu sheegay ama TV-ga afka dheer Al Jazeera uu sheegay in walaalkii ay dhibaato xoogan ka soo gaadhay wuxuu ugu yeeray dhibaato ay u geysteen xukuumadda Imaaraadka Carabta ninkan ayaa la sheegay hore inuu gacan saar oo la lahaa dalkaasi Imaaraadka Carabta oo uu danay ku fushanayeen waana ninkii labaad ee markaasi ka soo jeeda wadamada Carabta ee intay bahdilaan dawladda dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta ay ka tuuraan dalkiisa horeyna ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Masaarida Ahmed Shafiq ayaa ahaa ninkii inta ay xireen isla markaana ay xabsi geliyeen oo ay bahdileen kadibna ay ka musaafiriyeen dalkooda aan inta ku xidhno wararka iyo warbixinaha wixii damana isheena ku hay doona daawadayaal amaanaal